arrin aad social media ugu jirto ahayd in ururada bulshada rayidka ay la kulmaanta madaxweynaha ay madaxweynaha ku yiraahdeen waxaan doonaynaa qof iyo cod in la galo annaga ma aan oran annaga aragteena waxay ahayd oo marnay maamul goboleedyada madaxdooda ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba dhammaanna waxay ahayd aragtideenu oo halkan aan nimid aragti gooni ma wadano mana nihin dad ayagu jaangoynay siyaasadda waxa jaangoynay dadka hadda yimid haddii qof iyo cod dhici karto hadda ay taaganta ama ay shaqeyn macnaha ay caadi u shaqeyn lahayn gudoomiyaha sheegtay in macnaha aysan xilli ku qaban karin oo xilli dheera uu soo baxay hadda halkan waxa loo joogana waa arrimin laga arriminayo doorashada Soomaaliya 2020 halkan waxa ummadda isugu keenana waa arrintaas annagu waxaan madaxweynaha ku niri waxaan taageersanahay inaad heshiisaan oo idinka rabnaa labo inaad idinka tigi dhuusamareeb idinkoon heshiin iyo waxaad ku heshiisaan inaan idinkula shaqeyno arrinta muhiimaddu waa intaas laakiin annagu option gooni ah ama nooc gooni ah oo hadda taageersana male haddana waxay taagantahay hal la heshiiyo oo dadka Soomaaliyeed yaan la gelin gaab oo xukuumad la'aan ama xilli kala guur oo dhibaato iyo dood iyo mucaaradad iyo qalafsanaan iyo aragti kala duwanaansho inay timaado oo halkaas ay dhib Soomaaliya uga timaado ayadoo jiraan cudurro dhaqaale xumo iyo duruufo amni dhammaan intaasba marka insha Allah anagu hawshan waa intaas haddana waxaan u baaqaynaa in madaxda halkan joogta ay heshiiyaan kana heshiiyaan doorashada xilligeedana aysan dhaafin ku dhacdo aad u mahadsantiin